هذا النبي قوته ولا يعيده مالنت حديث كان مدينة أي مغلين بالليلي ما قال ذي مدينة قف مسكين وسائل وفقير ولا قواي أطعم الطعام قد عن تيسية وصلوا الأرحام رحم كحريرية صلة الرحم هذا قرابة حريري ست فوائد صلة الرحم كلها وحا كمدا عمرك إلهي كو دارين وكو بركين من أحب أن يبسط له في رزقه ويسع له في أثره فليصل رحمه لك جعل بنبي يري إن أرزاقات الله واسعيو عمرك أن الله بركيو قرابة دي ساحر يريب رسولك يري حرير قرابة هذا زيارة صلاة كسوحد دعوة كسوحد مساجد كسوحد حرير نقالك وحرير ماها أخلاق ذو ونكسب قرابة الله وحرير أخلاق ذو ونكسب لن تسعوا الناس بأموالكم ذاتك مالكم قد قاري ما يسابوا النبي يري لكن ذاتك وحال لقود دقايا ولقود قارا أخلاق ذو ونكسنيو iyo waji furnaanta buu rasuulku yiri waji furn wajigaagu ha furnaado haddaad qaraabadaada xiriirisid labadaaba iyo nabigu ku ballan qaaday in arsaaqadana ilaahay ku wasicin maanta kulligeen arsaaqada waxaa leena waa ciriiri arsaaqada waxaa ciriiriga geliyay waa maxay nin walba wuxuu leeyahay anuu ha noolaa dadka kale waxba igama gelin anigu aqal fiican han dhisto dadka kalena waxba igama gelin waxaan haysto ana iskale dadka kalena hee waxba igama gelin wixii fiican anay ugu fiican yihiin dadka kalena hee yeelkadood muslimku caynkaa maaha muslimku waa inuu noqdaa qof naftiisa u nool maaha waa inuu ahaadaa qof ummadda u nool ummadda wax taraaya maalka wax ku taraaya cilmiga wax ku taraaya caqliga wax ku taraaya xooggiisa wax ku taraaya dhaqaalihiisa wax ku taraaya hadduu ummadda waxtar u lahayna waa inuu ahaado qof sharkiisa ummadda meel kala fadhiya ilaa shar iyo khayrba bini aadamka waa lagu abuuree khayrkaaga haddaad ummadda gaarsiin weydo bal sharkaaga ummadda meelun kala fadhiiso silatu raxim arsaaqadana way ziyaadisaa buu nebigu leeyahay cimrigana way ku dheerayn silatu raxim waxa uu nebigu leeyahay qofka قاطع الرحم كالرحم كي سكويا جنة ما قلبوا رسولك يري قاطع الرحم كجنة ما قلوا فقرابتنا نحررنا هدي لهاي دقالة ونسيينا دقالة هنا وكغور هيننا هدي دقالة أنو مدى كدقنا أنا هاي سنة أخلاق ذو ونكسب أنو مدى كدقنا إن شاء الله هذا أخلاق ذو ونكسب نبينا عليه الصلاة والسلام قرابة ديسا علي با كمدا فاطمة كمدا رضي الله عنه هبينكم النبي قمر جلو رجل كعوتو كذا ميانا تكني وحي نبي هدي الله كانوا خديج النبي قدر جريه هلا ديدي هي جيلوين كيد هي قرابة ديدي إلى عائشة النبي كو اعتراض على النبي الله دمر البخديجة مر هذا الهيساية خديجة بر هذا الهيسا مر والبيت كأنه واحد ما دمر كلام أدوك إن لقوا أبوري يدا مويانه مرقابو نبي خديجة ما قاعد يسد بكين عائشة يدا إلهي وبدك يقسي تلقى مركي يقوين يدا حريرسي يدا حولي يقول بحنيسي يدا وبدك إلهي يقسي صدا سيهي ما لنت أنت كدن بيس عائشة وحيتري مرقان أرك النبي قو أرنتا كحناقي ما لنت أنت كدن بيس النبي قاكتيسا خديجة كم هذا القادم بيتري وكور هاي النبي قو خديجة عدي كنت تعلق سنيد ودن ونبي حريرين صلى الله عليه وسلم أخلاق ده وناكسن قيم كا وناكسن أي دينتين وإن أمر إساء إن نقف خير كيسا ومد وقارو شر كيسا ومد أيكن نبضكش وكي نبي صحابة كويري ألا أخبركم بخيركم من شركم كيني نيقو خير بدن يكيني نيقو شر بدن ما ينيك لا شيئا صحابة نوشك بيلادن ها كيني نيقو خير بدن وحويان وكان خير كي سنة للرجيو شر كي سنة ومضوا يكن نبضكش كينا ينيقو الشر بدنا وكان خير أن لقى الرجينين شر كي سنة ومضوا يكن نبضكلين خير لا يا ومضوا كما الرجيسو
sharkiisana ummaddu kama nabad gasho. kayniigu khayr badanna waa ka khayrkiisa ummaddu rajaysa mar walba. waa nin khayr badan, waa nin macruuf badan, waa nin la isfahmi karo, waa nin wixii kaa gala aad ka heli kartid, waa nin maaragtaan dadnimo fiican, waa nin ehel jecel, waa nin ixsaan badan. khayrkiisa ayaa mar walba la rajeeyaa. waa nin ummadda waxtara ninkaas. waa nin ninka daalimka gacanta qabta weeyaan. sifaadkaasuu nebigu sheegay baan ku sifoobaynaa. waxaan ku dadaalaynaa oo kale akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah in dadka muslimiintu walaalkaa mar walba aad u ducaysaa. waa ducada ugu istijaabada dhow buu nebigu yihi, walaalkaa oo ku ogeyno loo duceeyo. la xidhiidhiyo, la ziyaarto, la booqdo. salaadii subax nebigu markuu ka baxay buu saxaabada ku yidhi, ayaa waa bariistay isagoo sooman. abubakar baa gacanta taagay. ayaa waa bariistay isagoo miskiinna soo quudiya. abubakar baa gacanta taagay. ayaa waa bariistay isagoo aasna ka soo qayb gala. abubakar baa gacanta taagay. ayaa waa bariistay isagoo qof bukana u soo duceeyo soo ziyaartay. abubakar baa gacanta taagay. khisaalkaasi ninka u kulantaa janno galay buu rasuulku yidhi. waa gallin hore oo keliya ayuu abubakar sooman yahay, aasna ka soo qayb galay, qof bukana u soo duceeyey, miskiinna soo quudiyey. khayrkay u kala tartamayeen iyagu. waxaa kaloo ku dadaalaynaa inaan noqono dad lilaahiyiina. lilaahi waa maxay? ikhlaas. cibaadadaada ikhlaas, salaadaada ilaahay dartii, ikraamka akhlaaqdaada ilaahay dartii, haddaad ummadda waxtaraysa ilaahay dartii, haddaad cibaadaysan ilaahay dartii u cibaadayso, haddaad wax la bixi ilaahay dartii, haddaad ummadda waxbari ilaahay dartii, haddaad wax sheegi ilaahay dartii, haddaad miskiin dhisi ilaahay dartii,